soddon sano ka hor maanta oo kale oo ku beegan 27 May ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee loo yaqaan SNM uu si miidaamo ah ku soo galay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay arooryo hore subaxnimo maalin Jimco ah waxaana dadweynaha magaalada Burco ku waabariisteen dayaanka iyo dhawaaqa rasaasta kala duwan ee ay isweydaarsanayaan ciidamada ururka SNM ee soo galay gudaha magaalada Burco iyo ciidamadii Siyaad Bare ciidankii militariga dawladda Siyaad Bare ee magaalada Burco ayaa waxa ka lunta hogaamintii kadib markii la dilay taliyihii gaaska saddexaad ee Burco Colonel Cadceed iyo saraakiil kale oo isugu jirta military iyo booliis taasina waxa ciidankii SNM u sahashay inay gacanta ku wada dhigaan guud ahaanba magaalada Burco xoogagga ururka SNM ee dagaalka ismidaaminta ah ku soo galay gudaha magaalada Burco ayaa waxay markiiba taageero culus ka heleen dadweynihii Burco waxaana markiiba ku biiray oo qoriga qaatay dhalinyaradii magaalada hase yeeshee waxaa isku milmay ciidankii SNM iyo dadweynihii magaalada Burco ee iyagu jibaysnaa sidoo kale waxaa dhaawacmay taliyihii hogaaminaya ciidanka SNM ee soo galay magaalada Burco Mujaahid Axmed Mire waxaana ku dhintay dagaalka Mujaahid Ibrahim Dhiif oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka SNM waxaa arrintani keentay in hogaaminta ciidanka SNM ay faraha ka baxdo kadibna gaari Land Rover ah oo uu saaran yahay codbaahiyaal si weyn caan uga ah magaalada Burco isagu markiiba ku biiray ciidanka SNM uuna waday Diiriye Axmed Cabdi ayaa ku wareegay jidadka magaalada Burco isagoo ku dhawaaqaya in dhammaan ciidanka SNM ay ka baxaan gudaha magaalada oo ay isku tagaan xerada Gooncad oo ah xeradii tawaangida ciidanka Siyaad Bare ee subaxnimadii hore ay ciidanka SNM qabsadeen kadibna ay ka dhigteen xarun talis Mujaahid Cabdilaahi Ciise Aboole iyo Mujaahid Maxamed Cabdi Ciige Geney waxay ka mid yihiin ciidamadii SNM ee soo galay magaalada Burco hadda waxay ku nool yihiin Burco waxay ka warramayaan sida ciidanka SNM u soo galeen Burco dareenkoodu siduu yahay waxaanu ka soo dhaqaaqnay Samatar Axmed 26kii galabnimo waxaanu ciidanku ka koobnaa 4 guutada Tawakkal waxa taliyaha Axmed Macalin Haaruun ku xigeenkiisuna waxa عمر أو محمد الآمن وحوها حندلة وحيجانكيسنا عبد السيارة وتدا كواد صدحات دي مكابر جد هاي شتى كواد وتدا صدحات أما كواد لو يقني وحوتي إبراهيم ديف أو قمر على راه هاي لقي وحيجانكيسنا حسن علي أبو بكر وتدا تجني كذا عبد الله محمد أفيرة إيوه محمود ولاد أو كحيجانكيسها afarta guuto ayaan wahayn halka waxaan ka soo dhaqaaqnay Samatar Axmed ciidamada waxa hogaaminaya Axmed Mire ku xigeenkuna wuxuu ahaa Aadan Saleebaan howlgelintu wuxuu ahaa Xuseen Cabdi Hurre Samatar Axmed baan ka soo dhaqaaqnay 26 markay bishii ahayd goor galabnimo ilaa 4tii maghrib waxaan ku tukanay kurti Buryare halkaas aan ka soo dhaqaajinay dabeedna maghribkii waxaan ka soo talawnay Dhuqash halka baabuur shiciga ayuu naga hor yimi Dhuqash naga hor yimi markii magaalada sii dhaafinay wuxuu noo sheegay cadda dhexe in fagash joogto oo baabuurta ay ku baadhayso isla mar ahaantaas ciidan baa la sii horreysiyay signika dabeedna ciidankii ayaa meeshii wadada sii baneeyay oo fagashtii ka saaray baabuurtuna way iska daba socotay wax istaagay ma jirin toos baan u soo socnay 27kii subaxnimo waxaanu ka soo galnay 27 bishii May waxaanu ka soo galay wadada gobolka October markii ayaa anti waxa yaalay October anti aircraft-kii iyo control-kaas riyo qolo joogtay ayaa halkaas rasaasiyo wax loo joojinay tignikadii baa kala jeedisay ciidankuna uu soo socday xoguguf waa la soo socday aagii baarsiga ayaa lagu kala leexday qolana xaga xerada gaaska ayay u leexatay oo dooxa ayay ka laabatay qolana laamiga ayay soo qaaday waajibaadka ayaa kala ahaa gaaska barta Gooncad marka xaqii barta xilligaas lababa ma garanayay Gooncad iyo qaybta booliiska iyo jiidaas unba ma garanayay ciidankiisu kala qaybiyay isla mar ahaanta adigu xeradii gaaska waa la galay ee meel anti aircraft yaalay airport-ka dhinaciisa ayaa waqtigii naga riday oo 12 lagu gaadhay sidii la isu magaranayay
isagana aakhirkii la kiciyo dabeedna waxaanu isku urursanay gaaska goon cad oo gelikii horeba iyada la qabsaday ayaanu isku urursanay cabdilaahi markaad ka soo dhaqaaqaysa samatar axmed waxaad usoo bareeraysa xabad iyo dhibaato iyo halaag dhalinyarada ardayda xilligaa talaawado ay ka mid ahay ururka ka biiran waad ka mid ahayd maalinta galabta samatar axmed aad ka soo dhaqaaqayseen dareenkaygu wallaahi dareen aada u qiiraysan buu ahaa oo ah badbaadin dadka iyo dalka sidii loo badbaadin lahaa because dee heshiiskii etoobiya iyo soomaaliya ee jabuuti ka dhacay baa kooskareeyey ama sababay dee in dagaalkan la soo qaado markii heshiiskoodii uu noqday afweyne wixii uu jabhadahayana inuu xereeyo ee etoobiya ku lidahaa kuwii etoobiyana inay xerayso wixii ku lidahaa dowladda soomaaliya ee mucaaradka ku ahaa inayna xerayso markiina la yidhi dib usoo frontiskii hore dib uga soo baxa oo soo xerooda ayaa dee ciidamada dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed waxa uu gaadhay inaanay isdhiibin ay qaybta gaashaandhigbo iyo siyaasiba waxa go-aan la gaadhay dee in lasoo galo awoodda ciidan ee siyaad bare ee naga horeysa ee awoodda lena waana ogeen waxaase ka xog roonaatay dhibaatada haddii aanu isdhibno oo aanu reefas u baxno dhibaatada gaaraysa dadkii gudaha ee dabka aanu gelinay ya iyo halgankii oo burburay oo lumay iyo dhibaatada gaari doonta ee argoosiga ee dadka dadweynaha gudaha ku jira gaari doonta isla mar ahaanta kol haddii ay labadaa markii aanu isbarbar dhignay waxay noqotay inay habboon tahay inaanu halgankii gudaha gaadhsiino nidaamyo uu ahaayo dee inaanu halgankii gudaha gaadhsiino oo aanay taafweyne noqon ee taa aanu beenino halgankiina gudaha iyo dadkii naga faraha badnaa ee kolleyba dhibaatada ku dhici lahayd aanu gaadhsiino oo gudaha halgankii uu ka socdo oo aan dibadba loogu soo noqon oo gudaha ka sii fido 26 sano ka bacdi waxaad joogtaa burco dagaalku u dhammaaday dalkii waa la xoreeyey waa sidee maantana dareenkaagu alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anagu ujeedadii aanu lahayn waanu gaadhnay system baanu lahayn bedela systemkiina waanu bedelay inkastoo sidii aanu dadka la rabnay systemkii aanu la jeclayn ya weli aan hadafkiisii la gaadhin haddana step by step waxaan rajaynaynaa in la gaadhi doono insha allah bismillaahi kariim maanta maxaad u diri lahayd fariinta u diri lahayd mujaahidiintii wixii ka nool aqoomiya maxaad odhan lahayd u diri lahaa dee hambaliyo ujeedadii aanu lahayn waynu gaadhnay himilada iyo aayatiga iyo abaalmarintii ay idin lahaydeenna oo idin heli doontaan insha allah bismillaahi kariim in allahu maca saabiriin baan leh maalintaas runtii waxay ahayd maalin adag maalmihii qaraadhaa bay ka mid ahayd anigu waan xanuunsanaya runtii markaan magaalada laakiin soo gallay xabaddu dhacday waan bogsaday kanacaanay haysay waxaan ahaa qorigii laba qori baanu ku gollay markaa airportka qorig kale wuu istaagay qorigii keliya ka qabsaday airportka ciidankii haystay ee cadowga ahaa ayaan ahaa inkastoo rag badan nagaga dhintay maalintaa runtii iyo maanta dareenkaygu maalintaa waxaan ku talagelaya inaan dhinto taariikhna reebo ama noolow ama dhimo bay ahayd maantana waxaan marayaa runtii heer dowladnimo calan ciidan cudud magac sharaf maanta waxaan runtii dareenkaygu maanta iyo maalintii aad iyo aad buu kala fog yahay run ahaantiina waan ku talagalay ama dhimo ama noolow ama nolol hel oo yacnaa ku noolow dowladnimo iyo calan iyo ummad ama dhimo oo jaaniska halkaa kaaga dhammaado nasiib wanaag waxaan maanta u yeeshay jaanis inaan waddankaygii xora oo calan leh oo dowlada oo ciidamo iyo haddii alla bedinkii kala gedisan iyo maamul iyo wasiiro iyo golayaal iyo shacab iyo iskuulle mid walba leh inaa dhex mushaaxaya anigoo ah mujaahid ka mida mujaahidiinta snm soo gudagulkii ciidanka snm ee burco ayaa waxaa horseed u noqday furihii guusha ee ururka snm waxaanay noqotay markii u horeysay ee nidaamkii maamul ee dowladdii siyaad bare ee ka jiray gobollada waqooyi uu faraha ka baxo waxaana warbaahinta caalamku ay si wan u qaada dhigtay xaaladda dagaal ee ka socota waqooyiga soomaaliya hase yeeshee xukuumaddii siyaad bare ayaa dhinaceeda beenisay inaan wax dagaalii ka socon waqooyiga soomaaliya laanta af soomaaliga idaacadda b b c da ayaa 3 May 1988 waxay waraysi la yeelatay hogaamiyii ururka SLM ee waqtigaasi Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo iyadoo ka wareysatay dagaalka u dhaxeeya xoogagga SLM iyo ciidamada siyaad bare horta magaalada 28 baa la qabsaday si buuxda loo qabsaday duulaanku wuxuu ku dhacay muddo badan baa SLM waa tii u dagaalameysay ahayd urur
xornimo doona waa sidaysa gudihiisa ka dagaalamaysay muddo badan diyaargarow ayaa ay ku jireen ciidamada dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed marka waqtigii ay ula muuqatay inay fursad u ahayd ayaa dagaal kerisa shacbi weynuhu taageersan yahay meelo badan lagaga soo baxay ayaa lagu qaaday dhinacyaal badan oo wadanka ka mid ah oo aagga waqooyi ka mid yahay halkaa dabeedna waxaa lagu qabsaday magaalada Burco isla markiiba magaalooyin kale miyaad iyana weerarteen oo aad qabsateen mase waa Burco qura weerarku meelooyin badan baa la weeraray ilaa imankana meelo badan ayaa dagaalku ka socdaa meelaha la qabsaday ee aan warkoodana waxaa ka mid ah Cadaadley waxaa ka mid ah muxuu ahay ereyada Gabiile laftigeeda oo meelo badan laga xoreeyay waxaa ka mid ah tuulooyin badan oo hawdka ah oo shacbigu isagu laftigiisu gacanta ku xoreystay oo weyne ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah meelo badan oo baadiyaha iyo tuulooyinka ah maalintii isniintii hadal aad soo saarteen oo London ka soo saarteen waxaad ku sheegteen magaalada Sheekhna inaad qabsateen Sheekh ma ku jirtaa magaalooyinka aad qabsateen Sheekh magaalada Sheekh طبعا laftigeeda anigu saacadana fadhiyo boowa laakiin waxaan ogahay in dagaalo badan ay ka socdeen kana dhaceen berbera iyo Sheekh dhexdooda oo dagaaladii muxuu ahay ciidanka dawladda isku sheega meesha jooga lagu jabiyay Burcana maadaama la haysto marka Sheekh waxaan u qaadanaa inay tahay gobolka Xoroobay inay ka mid tahay askarta aba ciidamada SNM magaalada Burco weerarka ku qaaday tiradoodu intee bay leekaayeen ciidamadaasi ciidamo aan yarayn ayay ahaayeen ciidamada weeye ay suurta gelisay inay magaaladaas oo magaalada labaad ee dhinaca waqooyi ee dalka Soomaaliyeed ah oo ciidan laxaadi uu deganaa kana warqabeen muddo badan dagaal meesha ka socday hawliyada lagu qabsan karaa labadaba waa muujin karaysaa in xoog iyo niyad lagu galayna way muujinaysaa inaan ciidamada halkaa joogay ee dawladda ka tirsan dawladda kusheega ka tirsan inay tamara badan lahayn way muujinaysaa degdeg loo qabsaday sida hawsheeda looga adkaaday markii marka ma kun 2 kun 3 kun inta ku qiyaasi karaysaa ciidamada tirooyinkooda inaad inta dooni maayo waa wax shacbi dhan baa ka qayb galay ummadan baa meel walba kaga soo gurmatay marka ciidamada aan tiradooda yarayn oo aad fara badan weey shacabka magaalada Burco degan rayidka miyay ka qayb galeen dagaalka ciidamadiinu ay qaadeen shacbiga magaalada laftigiisu waxa la isku qabsaday magaalada bartankeeda ma yahayn waxay ahayd meelaha la baarayay meelaha ay ciidamadu degaayeen ciidamada dad soo tabaabshaystay iyo muxuu ahaayay saldhigyadii gudaha oo hore magaalada uga baxay laakiin magaalada gudaheeda laguma dagaalamin waxa qura dhacay waxay ahayd markii dagaalku socday meesha laga qabsaday inuu dayuurada soo diray oo isagu laba dayuuradood ciidamada dawladda Soomaaliya ku sheegu soo direen oo halka ay magaalada ku bamgareeyeen oo dad badan oo shicbi ah iyo daar ay wax ku yeeleen laakiin ilaa wax kale oo shacbiga magaalada gudaheeda dagaal ka dhacay ma jiro labadii dayuuradoodna waa soo rideen sida hadalka aad soo saarteen isniintii aad ku sheegteen labadii dayuuradoodba midna Burco lafteeda lagu soo riday si kalena muxuu ahay dhaawaceedi wuxuu tagay Hargeysa ku dhacay ciidamada Soomaalida qiyaastii imisa ka dhimatay oo dagaalkaas ka gashay Burco tirooyinkaasi tiro anagu oo intaasaa la dilay kuna aanti ma ay jirto waa si jirta dagaal baa meesha ka dhacay ciidamadoodu waxay u qaybsameen 3 nooc wax isdhiibay wax la saftay muxuu ahaayay ciidamada dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed iyo wax farxaray ciidamadiini imisa ka dhimatay ciidamadayada waxa ka dhintay 7 dhaawac noqotay wararka dhinaca Muqdisho ka imanaya waxa uu sheegayaa 600 ilaa 800 oo ciidamadiina ah in ay dagaalka ka qayb galeen midna aanu ka noqon ciidamadayadii way haystaan calankii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed bana maanta magaalada Burco ka taagan waanuna sidaan shalay ba yiri imankana waa cadeynaa haddii ciidamada dawladda Soomaaliyeed goliye taga birito Sir Ahmed Silaayo tallaabada kale ee taa ku xigtay ma ka qaadanaysan tallaabada kale ee taa ku xigtay qaadana waxa weeye dabcan inaanu dhulka intikaan ka xoreyno nidaamka taashid ee dalka ka dhisan meelo badan baa dagaalkii ka socda meelo badan baa imika dagaalkii Hargeysa waa ka socda waa ka taagan yahay magaalooyin kale badan waa ka taagan yahay waxaanu ku rajo weynahay inaanu meelo badan oo dalka xoreyno sababta ka sii wadno ilaa dalka Soomaaliya xorado dhulkee way dhulka aad leedahay waan xoreynayna dhulka Soomaaliyeed sida dastuurka iyagu dhigayo dadka aanu nahay ummadda Soomaaliyeed baanu nahay dalka yagii Soomaali la oran jiray weeye dadka aan xoreyna
ee gobollada waqooyiga maaha gobollada waqooyiga dalka soomaaliyeed bay ka mid yihiin waa arrinaa gobollada kalena waa iyagana waa la xorayn doona waqtigooda insha allah waa la gaari doonaa ama iminkaba hawsha waa ku socotaa mujaahid axmed mire wuxuu ahaa taliyihii ciidanka SNM ee 27 May 1988 soo galay gudaha magaalada Burco wuxuu hadda ku nool yahay ariga Ingiriiska mar uu ka hadlayay sida ay u soo galeen ciidamada SNM gudaha magaalada Burco iyo duruufihii adkaa ee xilligaasi soo wajahay iyo doodii adkeyd ee dhexmartay kooxdii haweenka ahayd ee ku jirtay ciidamada SNM ayaa waxa ka mid ah hadaladiisii hada jeer waxa la sheegaa ragga dagaalka galay iyo waxa laga sheekeeyaa ciidanka Burco soo galay waxa ka mid ahaa koox gabdha oo haweenka ka mid ah waxaan ku yiri gabdhayo iska jooga maanta raggani rag ku talagalay inay soo noqdaan maaha iska jooga way la doodeen si geesinimo ay la doodeen oo wadaniyad leh waxay ugu qalciyeen inaan ka tagin waxaan alla goostay oo ku dhiiranay inaan kaxeeyo dagaalka geeyo hablihii maalintan la socda qaar badan baa Yurub ka jooga qaarna dalkii bay joogaan intooda badan way badbaadeen ilaahay dagaalkii waxba ku miyay waxa weeyaan waxyaabaha xusuusta mudan weeyaan markii aan ciidanka ka soo dhaqaajinay Samatar Axmed ka soo dhaqaaqinay ragii waa wada fadhiyaan iminka maghrib bay ahayd salaadii maghrib halkaasaan ciidanka ku tujiyay markaanu tukanaynu ducaysanay ayaynu baabuurteena ka fuullo tan arcadii nagu dhacayna ka dhaqaajinay waxaan ciidanka u sheegay baabuur walba waxa ku jira shidaal kooban shidaalkaasi wuxuu ina geynayaa magaalada Burco inagama soo celin karo qori walba waxa ku jirta rasaas aynu raaca koowaad kaga gudbi karno ka labaad kulama dagaalami karno waxa hantidii shidaalkii rasaastii hubkii gobonimadii waxay taallaa ciideenna ma ku dhimanaa haa ayaa isku qof walba isagoo og taa oo aan qofna shaki kaga jirin ayaanu gaadiid ku soo furay sidii baanu ku soo gaadhnay Burco salaadii subax waxaanu ku tukanay halkii uu ku faani jiray ee la oran jiray barta ee la oran jiray looma dhowaado qofka u dhowaada wuu dhintaa halkii lafteedii baan ku tukaday markay halkeen dadka iska soo socda ayay baasuuqiyeen lagu soo riday markaasaan yiri waxba ku ridina iska socdo markii waxba lagu rido waa in iska soo socday bayaabadeed malawa balid ka horeeya xaqi magaalada la idinka jiray balido kullu fiina halkii bay buladi bogaya halkaas hawshu ka bilaabatay saasa dagaalkii lagu galay dagaalkaas rag badan waa ku geeriyoodeen ragna waa ku dhaawacmeen anigoo taliyihii ciidanka ahaa waan ku dhaawacmay markaan ku dhaawacmay ayay yiraahdeen war meeshan kaasa waxaan ila cadceed u dhacdo ka bixi maayo sugid halkii baan ku hakaday markii la soo qabqabtay dadkii magaalada gudaheeda ku jiray saraakiil badan la soo qabtay halkii maxkamadii laga abaabulay
سراكيش يا المستعرقني على عيد دعضي أيام براك بحي وحي سويدين نبركا يقول لمدحي أسفقي وحنا نقول هستي توبين إلهي حق سليقة توبين waayo soo jeedkiibaa iga batay daalkiibaa iga batay sidaan ku soconayo ma garanayo waayo waxa weeyaan saddex darawal oo ii shaqaynaya baan midba magaaladii aan kulaga ku hayo mid waxa kaga tegay magaalada Haashim midna waxa kaga tegay Doogo Gudud midna waxa kaga tegay Daalaco saddexda darawal mid walba waxa loo haystay inuu ka yar booday laakiin soo jeedkii baa laga batay marka xabadaasi u dhacday waan qaboobay jidkii uu kala degay aragtideedii uu isbedeshay waxa ii noqotay naxariis ilaahay xaggiisa iga furay oo hurgumada iga baxday baa ku kala dugan wax ku kala gartay oo aragii ku kala marka anigu aan ka tagay saraakiisha aan sii wada tashanay waxa xukunkii marka gacanta ku dhigay oo ay u dhiibeen saraakiishu ninkii ugu waay aragsanaa ugu daada weynaa oo marka waliba dhaawaco gacan keliya مجاهد الحمد لله أيام وحويا المالنتا دقال كاي مقادني كدب دلكي ليدي بقومي نامبي دقال كنا محاكا تدري لواتنكي هالكاسو كلاي برو كلاي سديدي لواتنكي نعيلك قدس أيام محمد علي كلاي markii ciidamadii calaamay soo weerareen 29 wuxuu galay Xuseen Axmed Gul Xuseen Dheer wuxuu galay Calaadi soddonkiiba haddana Maxamed Cali Wadaarto wuxuu galay Mandheera qoobiya soddonkiina Ibrahim Xuseen oo hogaaminaya ciidamadii Makka ayaa istaagaysa soo galay كوس فارح خليف يا حليم أحمد فارح waxay ka mid yihiin ciidankii SLM ee soo galay magaalada Burco 26 sano ka hor hadda waxay ku nool yihiin magaalada Burco waxaana ka mid yihiin ciidanka qaranka ee gobolka Togdheer xog waraysi kooban oo la yeelanay ayay kaga warbixinayaan tirada gabdhaha la socota ciidanka SLM ee soo gashay gudaha magaalada iyo xusuusta dareenkooda waxay igu kalifay hadii aad su'aashay ururka SLM in aan ku biiro waxyeeladii ka dhacaysay gobolada Soomaaliya iyo ciriirigii iyo cunaqabatayntii haysatay maatada ama dadkay maxay ahayd la jiirka ahayn ee kuwii anaga aan soo raacnay ee dalka aan la soo galay ay ka dhiidiyeen inaanu ka dhiidinaaba inaan noqotay anakana waxay u kalifay dhibaatada ka dhacday Soomaaliya ubadkii hablihii dumarkii loogu soo galay guryahoodii hooyadooda ee mujaahidiinta asnaba ay ka dhidhiday sarkaal iyo mujaahid joogay dabadaba ayaa nagu kalifay inaan soo raacno dareenkaygu wallahi aad iyo aad buu fiicnaa wanaagsanaa waxaan la socday 820 nin baa la socday mujaahidina oo maanta waxay nooleeyay ku yar yihiin waan ku ganacsaa inaan la dhinto oo la dhaawacmo oo la halgamo oo wax la qabto ku qanacsana waxay ahaayeen hablahaasi hadii aad weydiisay 13 hablood 13 ka hablood waxaan ku yiri lambar 1 aniga Koos Faarax Khaliif Xaliim Axmed Faarax Canab Cali Axmed Canab Raabi Hindi Ismaan Jilaal Saada Dhaga Yare Hindi Abnawaas Marwo Ruun Axmed Ismaan Saynab أو الله يرحم الراحمين في الجنة وحيد انتي سينب أو عمر يرب حسن حاج عبد الله والله بدأ هب مشاهدات الدم بأي يجو كوجيريودين صدق هي طبعا كهبلات بانوها
xubnahaas ku guuray dagaalkii burco maalinta la soo galay ku dhintay intii uu socday Soomaaliya intii uu dagaalka burco socday bay ku dhinteen maalintii arbacadii ayay dhinteen labada hablood koos aduu dagaalka waad gashay waan galay waan ku dhaawacmay igu dhacday waxaan ka dagaalamayay markaa ay xabaddu igu dhacday waxay ahayd waqtigii magaalada burco dib looga baxay markaa waxaan ku dhaawacmay dagaal ka dhacay Jaamacadda Caynaanshe gacanta midig xabadi fisaa way jabisay koos maalintaas Samatar Axmed ka soo dhaqaaqayseen waxa la sheegay in taliye ciidanka watay Axmed Mire Maxamed inuu khudbad idin jeediyay ciidamada u jeediyay gaar ahaan haweenkii la socday tirada 13 uu ku yiri iska jooga idinku haween baatiin dagaal ma gali karaysaan wala dhiman ee la soo noqon maayo balse aad ka diideen maxaad ku diideen haddii wala dhiman xabad lagu soo orday maxaad ku filaysan way jirtay niyiri waxa weeyaan ciidamadan dalka galaya waa rag way dagaalamayaan way dhimanayaan way dhaawacmayaan waxay gelayaan buuraha si kasta dhici karta waxa tihiin haween idinku kuma gali kartaan iska jooga waanu ka diidnay waayo waanu ku qanacsanayn haday dhintaana inaanu la dhimanno hadii ay noolaadaana ay noolaano maalinta soo dhalaasay Samatar dareenkaagu sidoo maadaama la soo socdo dagaal la gelayo halaag la gelayo khibradooda inay ka haystaan dareenkaagu maalinta sidoo cad dareenkaygu aad iyo aad buu u fiicnaa waayo qofku waxa hadii uu ku qanacsan yahay kalsooni uu ka haysto dee wuu ku qanacsan yahay dagaaladuna way nagu dhaceen waayo imisa goor baan lagu galay tuulada Mayran oo ka soo raacnay ciidanka gudaheeda ka dhimanayaan arkaynay ka dhaawacmayaan arkaynay inaan la noolaanayn baan ku xisaabtamaynay dee waan u kasnaa u bareedna marka duco soo gashay 7 maalintii Jimcaha xabadu bilaabantay ee magaalo ahayd dagaalkii idinku horeeyay face to face ahaydeen sida la sheegayna aad baabuurta teknikada aad saaraydeen maxaad la kulanteen waxaan la kulanay dee waa fara badan oo sababtu tahay annagu hortu dee qolaba meel bay ka gasho ciidanka waa la qaybiyay waxaanu ahayn qoladii laamigan cawaale hormartay goon cad ku dhaadhacday dee waa fara badan baan la kulanay aad u fara badan wallahi markaan soo galay magaalada ilaa 2 saacadood markaan dagaalamayay waxaan naga dhaawacmay mujaahidkii watay Axmed Mire Maxamed ciidanku maanta wuu yar murugooday habeenkii waanu yar shakinay haddana wuxuu ahaa rag baa waday oo mujaahidkii markii la qaaday ee la yiri waxba ma qabo alwaadayg iyo qalbiga ay keeneen mujaahidiintii ay leeyahay maanta wadanka inagoo soo galay maninkii mujaahidkeena dhaawacmay alxamdulillaah rabbil caalamiin waanu ku qanacsanay habeenkaas waanu yar murugoonay hasaatee subaxdiiba waanu galay dagaalkii wuu noo wacnaaday waayo anigu waxaan saaraa gaari wadooyin kale Maxamed Wadaad urida ka Kayd Cismaan Maxamed oo imkana jooga qaybta khawran maxaad dareemaysaa maanta waxaan dareemaynaa farxad nolol wanaagsan inagoo xuriyad ku nool ciideeni hooyahoodana inagoo joogna dee 100% caafimaad un baynu Ilaahay uga baahannahay maka wallahi waxaan dareemaynaa dhibaatada hore wayna soo martay horta raggii mujaahidiintii aan loo soconay 300 nin kama noola 300 oo nin kama noola wixii aan maanta la soconay 800 iyo 200 baan maanta soo galay wadanka 200 maanta hadii la eego wax nafle kama noola inta ka nool waxa kale ka qiiroona anagu ee dumar baawnaay ubad baan dhalay xurriyad waan haysanaa nabadgelyo waan haysanaa saraakiil waan waa askartii nameeyay wixii joogay nameeyay gacanta waan luway laakiin waxaan xasuusanaa oo aan ka qiiroona marka aan aragno mujaahidiintii wixii soo haray ee waalan ee naafale aan ciidaleelin maanta mujaahidka ayaga haysta waan ku qanacsanahay waan u codaynay imika waan jecelahay waan ku faanaa laakiin waxaan doonayaa mujaahidka maanta na haysta inuu dib u eego naafadii aqoomihii ragga waalan ee jooga wadanka way wada waalin aslam wixii wadanka xoreystay xornimada maanta lagu faanayo ee ku tartamayno ee u dabaaldegayno aslam baa keentay aslamna way dhimatay intii noolayd daryeel ma leh magaalada xafiis baan ku leenahay aslam wadanka xukumalin xafiisada karama tagno mana gallo mana eegno xafiis kaliyan ku leenahay wuxuu leeyahay xafiiska waxa hor seexdo subaxdeen ka soo kaxina mudada 20 nin ayaa fadhiya oo waalan marka mujaahidka maanta waxaan weydiisanaynaa maantana ilaahay kursiga saaray inuu hoos noo eego oo mujaahidiintii eego rag iyo dumar waan dayacanay askar waan laakiin askari mushahar qaata waa askari sida imka ay Xaliima sheegtay si lamida in uu hoos u eego wax u qabto
mujaahidiintii agoomihii ay ka tagtay iyo ubadkoodii waayo naafada noolaha sida ay sheegtay wax nafliba dee kama noola imaka mudmurka ka noolina dee laftirkoodu waaba iska dayow ama wayba daaleen marka wixii uu u qaban karo inuu u qabto ayaan ka codsanayaa xafiiska uu noo furo yacnihii waxa weeyaan dee isagu xaaladda oo dhan buu la socday waxaan jeclahay inuu wax u qabto ururka SNM mujaahidiintii SNM wixii dhintay iyo waxa noolba wixii dhintay Allah ayaa raxmar raaximiin ilaahay ha naxariisto wixii noola meel ay joogaanba waan u hambalyeynaa waxa weeye mujaahidiinta SNM meel kasto ay joogto waan u hambalyeynaa waan u ducaynaynaa wixii dhintay ilaahay naxariis janna ka waraabiyo inta joogta ee nool meel kasto jiraan waan u hambalyeynaa ilaahay baan caafimaad weydiinaynaa mid baa safariin aan faraya Axmed Mire wuxuu ahaa hogaankii SNM buu ahaa ninkii soo halgabay buu ahaa ninkii faqash gacanta u soo dhigay buu ahaa ninkii burcal ahaa buu ahaa ninkii ku dhaadanayay buu ahaa ninkii keenay buu ahaa Axmed Mire waxaan leenahay dalkaaga ku soo noqo dhalinyarada reer Soomaaliland ee tahriibaysana mid baan odhanayaa waxa weeyaan annagu haddii aanu dhalinyaro ahayn markii aanu dalka soo galay in ciidamada SNM la soconay waxaanu ku xisaabtamaynay inaanu ama dhimanno ama noolaano haddii kale dee dhulkayagii hooyo oo hodana aanu ku noolaano iyakuna waxay ku xisaabtamayaan inay tahriibaan oo ay doonta raacaan oo ay ama dhintaan dee ama dhoofaan waxa weeyaan dhimashada ay dhimanayaan ee ay dalaanay lahayn qabashadiisa ku dhimanayaan waxa ka wanaagsan iyagoo ciidooda hoos u eega ciidooda dhunkada waxa ay ku timid raadkeeda dib u raaca wax barta yacnihii ku xisaabtama noloshu marba heerka ay marayso dee aniga waxa ila quman intaasi waa iga waane waxaan soo weydiin u sheegayaa reer Soomaaliland ragga xamar u heesaya ee ka sheekeynaya xamar ma geedo Soomaaliland xamar ma geedo xamar ma gada ragba kunbaa ku dhintay kunbaa ku dhaawacmay dhunkada ciidiina dalkiina u soo noqda qaylada iska daaya kuwa la bariya calankiina aamina muddo ku siman 7 cisho kadib ayaa ciidamadii SNM waxay ka baxeen magaalada Burco waxaana fariisimo ka samaysan duleedka magaalada Burco sidoo kalena dadweynaha magaalada Burco ayaa idilhaanba ka barakacay gudaha magaalada waxaana tagan xeryaha qaxooti oo laga sameeyay bariga Itoobiya oo ku kala yaalay magaalooyinka Daroor Rabaso Abokor iyo Dulcad ilaa 2 sano muddo ka siman ayaa ciidamada SNM iyo kuwa dawladda Siyaad Bare uu dagaalku ka dhex socday ase yeeshee horaantii sanadkii 1991 ayaa ciidamadii SNM ay si rasmi uga guulaysteen ciidamadii dawladda Siyaad Bare isla markaana ay gacanta ku dhigeen waqooyiga Soomaaliya madaxdii ururka SNM ayaa waxay markiiba qabteen shiro dib loogu heshiisiinayo beelihii wada deganaa waqooyiga Soomaaliland kuwaasoo lagu qabtay magaalooyinka Berbera iyo Burco markii ay dhammaadeen shirarkii dib u heshiisiintu ayaa waxa beelaha Soomaaliland wada deganaa ay isugu yimaadeen shirweyne kaasoo lagu qabtay magaalada Burco waxaana 18 May 1991 si rasmi ah ugu dhawaaqeen in Soomaaliland dib uga soo noqotay madax banaanadeedii bishii July